عبد الرحمن إساق عمر waxa uu ku jiraa hawshiisa maalinlaha ah ee samaynta qaxwaha waa shaqo ku dhawaad 3 sano oo ku maareynaya noloshiisa iyo xubno kamid ah qoyskiisa oo ku sugan magaalada Muqdisho 4 sano ka hor ayaa laga soo taxeelay wadanka Saudi Arabia oo ku dhashay kuna soo barbaaray markii uu yaraa waxa uu maqli jiray colaadda ka jirtay Soomaaliya laakiin aragtidaasi way isbedeshay markii uu wadanka soo gaaray كل شيء سعودي عربي ما هو أفضل على سكتاله وما شاء الله سكت فالسكتة سنة واحد على سكتة برناي قلنا واحد برناي قلنا واحد خبناي ما شاء الله نسينا ما كم يده يا حمد إيمانه مسا عمل سنة عمل كشخير نسينا واي لأنه بربرك يقول والله يو دجالك قحي واحد صدق وحاجة صورنا إن الصومالية دولة وحكي جرب لكن مركا إماري أنا ابتدي dadkii qaabka oo hadlay hadalka af Soomaaliga waxyaalaha sugan ma sha Allah inkasta oo Cabdiraxmaan wali dareen weyn u haya dalkii uu ku dhashay kuna barbaaray ee Saudi Arabia haddana waxa uu aaminsan yahay in wax kasta ay ugu muhiimsan tahay isbeddelka nolosha uu la jaan qaaday waxa uu sidoo kale qirayaa in shaqo wanaagsan uu ku haysto Soomaaliya والله أرتورا بنك هذه شغلة أرتورا شغلة وقناع سنة وهي لأنه خذ بني آدم روحه هايستو قناعة حتى أنا قناع سنة لهن أصحابتي بحاين أرأي لهن أرتورا لما مشاهد يجرتو أرتورا ما أقول له تكون كورتي كبر بارتي ما لا كمان أنت معها وهذا إسكان هذا وطن كذا لا وطن كذا أنا هقوم أمانة وهي إن على كم مرة و المدحين وكمان ما مسمى نقناي إن أنا أبتو عمره هذا وما تجاي هذا سعودي عربي حج تجاي كي تجاي هاي وأنا صوت الحين مديني لكن هو سكر باري ودنتي وكدوبن فوحكم مرة معها عبد الرحمن إساق وحى يسوق هذا كشقيان أن يراك له كل شيء دلك الخليج كعربته لكن صومالية يجي ما هو كحرمته هي إنسان inta yarta Soomaalida ah ay ku firfircoon yihiin shaqada faham buuxana ay u leeyihiin ka howlgelida xarumaha noocaan ah ee hadda ku soo badanaya magaalada Muqdisho dadka ka imaaday qurbaha jaraan khaliid ka imaaday macnaha shaqada way u helayeen baahi ay u qabaan oo ay si baahi ku jirtay macnaha u shaqaysanayaan wadana waa ka aaminsan yihiin shaqada ama wiilasha xamal ku qoray dhalinyarada ah macnaha shaqada ay ka tahay si macnaha caadi ah oo macnaha serious leh keen oo baahi weyn dad aan u qabin camal ay u shaqeynayaan marka waxay kala duwan waxa way dhanka baahida iyo shaqada ay u qabaan kala duwan yihiin waxaan isleeyahay waxa keenaya waxa way qofkii oo ka imaaday dalshay soo arkay dadkii shaqeysanayay iyo ama lagu soo ciilay meeshaas oo dalkiisa markay ma shaqo fiican ka helo oo si fiican u shaqeysana halka qof kale oo magaalada aan wali ka bixin oo san khibrad u lahayn in dadka loo shaqeeyo macnaha iyo waxyaabaha laga wadanayo macaamiisha ayaa xitaa qaba in dhalinyarada ku soo koray carabta ay yihiin kuwa yaqaana hanaanka loola dhaqmo macaamiisha ay u adeegayaan marka loo fiiriyo kuwa kale ee ku koray dalka Soomaaliya isla markaana soo dhaweynteedu ay tahay kuwa aad u sareysa dhalinyarada ka imaa wadamada carabta marka hore waa ka dareemaysaa inay dadka wadanka aysan ahayn waxaa dareemaysaa inay kusoo dhaweynayaan adeeg fiican Soomaaliya soo dhawow waa ku mahadsan inaa soo booqatay markii ku imaa ee kula hadlay si adadla oo ma aragta adiga waxaa isdhihi karaa wax ugu marka ka arkaayo waxa waaye inay dad professional waxa ay ku yaqaanaan ama aslan qof loola tacaamulayo inaysan ku dareensiinin inaan qof wax garanaysa aan qof marka wada kala dhaqmaayo العزيز برو قبناها VOA